وعن أو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan ka diyaariyay North Korea ama Kuuriyada Waqooyi. Barnaamijkani waa kala socon doontaan oo aan ku soo deyn doonaa marka hore subscribe page-ka oo la soco waxyaalaha imika waxa ka mid ah waxyaalaha Kuuriyada ka mamnuucaya crane-ka ama in la ooyo oo wadanka Kuuriya ma ooyi kartid haddii aad ooyidna wax weeyaan waa dil mid kale waxa uu leeyahay meelo loogu talagalay in haddii aad rabtid inaad ooydo aad ku soo ooydo meelaha lagu keenaya dadkuna kaliya waxay u ooyaan oo ay caabudayaan waxa weeyaan hadba ninka hogaamiyaha markaas oo ah ee wadanka iska haysta ee wadanka isagu iska leh cid kalena lama ooyi karo haddii laakiin ninka aad aragtid kaliya waad ooysaa isaga waad u foorsanaysaa waxa weeyaan waxa ka dhigaysaa oo kale iyaga wax ka dhigan tahay sida dumarka oo kale way u ooyaan ciyaalka kale way u ooyaan ninkaas wadanka isaga iska haysta cidna markaa kuma haysato oo wadanka sidoo doona ayuu ka yeelaa waxyaabo kale oo aad u qariiba oo wadanka ka mid ah waxa weeyaan timo jaris oo kale ama haircut iska soo taqaaniin wadanka timaha imika juice uma leeyahay jartid inaad ku tiratid inaad timo la soo hadhid juice-ka waxa iska leh oo kaliya waxa weeyaan wax hogaamiyaha soo jaraya oo waxa la oranayaa sida u jarta sidaas u jarta markaas ayaa lagu sheegaya sida u soo jaranaysid laakiin adigu ma aaminaysid waxyaalaha kale ee wadanka uu aadka uga duwan yahay ee wadamada kale waxa ka mid ah wadanku waxa uu bilaadkiin kitaab lagama ogola waxa weeyaan wax diin oo laga ogolay ma jirto kitaab lagama ogola bible-ka lagama ogola quraan lagama ogola mid kale waxaan ka soo booday tartimaha waxa jira meelo lagu xiro kamarado suuqyada sida loo eego qof walba soo u jiran yahay markaas la soo awanayay hebel si khaldan buu u jirtay marka bilaadiina wadanku uu ku caan yahay wadanka wax diina lagama ogola haba yaraatee diinta kaliya ee laga ogol yahay waxa weeyaan wadanka waa inaad hayta kristaan lagama ogola islaam lagama ogola waxaas oo dhan diimahaas oo dhan lagama ogola laakiin kaliya waxa laga ogol yahay waa in ninka hogaamiyaha ah kaliya la caabudo ninkaas ayuunba ah ninka kaliya ee diinta jaraya harba Kim Jong Un baa loo jaraya ya badanaa ya wadanka midda kale waxyaalaha uu aadka ugu cajiibka yahay waxa ka mid oo kale waa television la'aanta wadankii television la'aan ayaa ka jirta imika inaga imsa television baa shira oo cable TV University TV oo mashaakil wadanka kaliya waxa ka jira laba television oo kaliya taba labada television ka jirana waxay soo daayeen kaliya waxyaalaha dawladda ku saabsan dawladda basta qabantay Kim Jong Un baa waxa sameeyay America lahaaya waxaan ku wada waxyaalahaas oo dhan baa la soo deenayaa si de wadanku u noqdo wadan ma garanaysaa iyagu kaligood awood isu leh wadankaas America saan dadkan baa saan hubkan baa la tijaabiyay waxaan baa la qabtay oo bas ayaa laga soo daayaa wax kale laga soo daayo maaha meel la iska oranaysiyaa la iska maagaya wax kale la iska maagaya Kuuriya waa bila gawaadhi imika waxa uu leeyahay wadanka kaliya 2 milyan qof waxa wata weeyaan 1 qof 2 milyan ama 3 milyan gawaadhida la wato waa gawaadhida 1970 kii la haysan jiray 1990 kii la haysan jiray Mareykanka la haysan jiray wadanka America waxa weeyaan waxa uu leeyahay kunkiiba 3 qofba waxa weeyaan 2 qof baa gaari wata waa ka soo jeedaan marka wala mid kuwan waxay waxa lugeynayaan gawaadhida inta gawaadhida wadatana waa inta dawladda u shaqeysa oo kaliya wax kale lama qabto wala lugeynaya bas ma jiro waxa weeyaan wax kala uu aad ku soo yahay free time ama wax fasax la dhaho wadanka haba yaraatay ka jira ma jiro haddii aad leedahay fasax baad gali lahayd ama beeltay lahayd waxa weeyaan ma jirto kaliya waxaad u shaqeynaysaa voluntary dawladda u shaqeynaysaa waxaan baad qabanaysaa wax allaaday wixii ma garanaysaa lagu diray dawladdu ku durtaada qabanaysaa nijaarnimaad ku shaqeynaysaa ya Soomaali ma ogoshay taas marka waxyaalaha wadanku aadka ugu cajiibka yahay ay ka mid tahay haddii imika aad jidid shaqada waxa kugu ganaxa inaad micnaha laga jarayo qudho kale North Korea waxyaalaha kale la yaab ka mid ah no photos sawir ma laga qaado wadanka wax kamarado ka shaqeysa ma jirto haba yaraatee ma ogola in laga qaado kamarada xitaa dadku ma ogola in kamarada laga qaado dawladduna ma ogola sidoo kale inta kaliya ee kamaradaha haysata waxa weeyaan waa inta dawladda
propaganda soo daayay laakiin ma ogola xitaa dadka yar masaakiinta gaajoonaya in wax laga qaado dowladdu waxay ogoshay kaliya ciidamada iyo sida ay tababaranayaan iyo waxyaalaha noocaasa ee qariibka ah laga qaado waxaana askarta ayaa loo dhiibaa kamaradaha askarta waddanka inta haysata inta badan mid kale waxaa jira kamarado lagu basaasayo oo suuqa lagu xulayo si lagu eego bal qofkan siduu yahay kamaradaha badankoodu waxay u shaqeeyaan Kim Jong Un oo isaga ayaa lagu haysiiya waxyaalaha kale waddanku aad ku yaabaya waxaa ka mid ah dumarka ayaa askar ah dumarka askartoodu waxa weeyaan waa askarta waxaa lagu xulanayaa gabadha waa inay tahay gabadh xanaaqyada oo aan nixin gabadhu waa inay tahay mid hogaamiyaha jecel oo ka baqaysa haddii kale waddanka waxayna ku hanjabaan mar walba oo tababarkooda u ah waanu leynaynaa america waanu ka xoog weynahay waxyaalahaas oo dhan ayay aad iyagu uga helaan oo ay isku macaaniyaan waddankana ay ku haystaan waxyaalaha kale North Korea ka mid ah weeyaan imika North Korea ma oran kartid ama waqooyi Korea ma oran kartid haddii aad tiraahdo waddankaas waqooyi Korea waxaa tahay dil laakiin waxaad oranaysaa kaliya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Korea haddii aad tiraahdo wax ka sokeeya dil baad ku xukumatay ma garatay waxyaalaha kale ka mid ah waxa weeyaan ninka markaa hogaamiyaha ama Kim Jong Un oo kale laguma oran karo Kim Jong Un laguma oran karo kaliya waxa lagu oranayaa oo lagu yeerayaa commander ama kii sarreeyay ninkii waddanka lahaa ninka kaliya ee waddanka laga caabudo markaas isagu ilaah u ahay ilaah u qaybsiiyay waa hooyaanka meesha yaa waxaan rajaynaya inay yaabtaan waxyaabaha fadlan qayb kale wada qaybta qaybta koowaad share garee like saar subscribe na qabo channelkayga waa mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh